shirkadda Google ayaa xiraysa inta badan shabakadaha bulshada ee Google Plus loo yaqaan kadib markii la jabsaday xogta tiraba ilaa iyo 500,000 oo qof oo shabakadaasi isticmaala. Shirkadda ayaa sheegtay in khaladka ka dhex jira barnaamijyadeeda ay la micno tahay in dadka rumaysnaa in xogtoodu ay gaar iyaga u tahay inay dad kale ogaan karaan. Shirkadda ayaa arrintan ogaatay bishii March balse ma aanay ogeysiin dadka adeegsada shabakadaasi iyo maamulayaasha toona. barnaamijka lagu magacaabo Google Plus ayaa la daahfuray taariikhdu markay ahayd 2011 si loo tartansiiyo shirkadda Facebook. balse barnaamijka Google Plus waa uu guul daraystay markii dambena waxaa la dhigay qayb ka mid ah shabakadda ballaaran ee Google ee adeegyada kala duwan isku xira. shirkadda Google waxa ay samaysay baaritaan iyada u gaar ah kaasoo ku aadan in gacan saddexaad ay adeegsan karto barnaamijyadeeda Google Plus. jawaabta ayaa noqotay haa, balse shirkadda ayaa go'aansatay in dhibaatadu aanay gaarsiin heer la xiro barnaamijka oo idil. wargeyska lagu magacaabo Wall Street Journal ayaa soo xigtay qoraallo hoose oo muujinayay in madaxda fulinta ee shirkadda Google ay ka walaacsan yihiin in arrintani ay soo jiidanayso indhaha bulshada adeegsata haddii la ogaado in khalad uu ka dhex jiro barnaamijka Google Plus. Saciid Axmed Tamreyse, wararka telefishinka caalamiga ah ee Star, Burco. shirkadda tiknoolajiyadda ee Apple waxa ay sii wadaa inay diido isla markaana iska fogeyso wararka sheegaya in qalab kombiyuutar oo ay leedahay shirkaddaasi loo dhacay isla markaana la xaday baa la yidhi si loogu basaaso waddankaasi Mareykanka. waraaq qoraal ah oo loo diray guddi hoosaadka ganacsiga ee aqalka Senatka ayay shirkadda Apple ku sheegtay in aanaysan jirin wax cadeymo muujinaya in qalabka microchipska loo yaqaano ay ka iibisay shirkaddaasi Apple waddankaasi Shiinaha si Shiinuhu galaangal ugu helo iyo meelo uu u soo maro macluumaadka iyo xogaha sirta ah ee hababka waddanka Mareykanka. diidmada shirkadda Apple ayaa jawaab u ah maqaalka Bloomberg Business Week oo soo baxay toddobaadkii hore. warbixinta ayaa soo baxday iyada oo tiknoolajiyadda weyn ay soo wajahday naqdi ku saabsan jabinta xogaha baryahan dambe, balse shirkaddaasi Apple ayaa sheegaysa inay iska difaacday Bloomberg sanadkii la soo dhaafay. laakiin warbaahinta ayaa sidoo kale waxa ay sheegaysaa inay sheekadaasi weli socoto. shirkadda Facebook waxa ay sheegtay inay dhowaan daahfuri doonto qalab cusub oo casri ah kaasoo khaas u ah dadka shabakadaasi Facebook isticmaala. qalabkan waa qalab kamarad ah oo lagu rakibayo moobilada iyo kombiyuutarada. qalabka kamarada ah ee Facebook khaaska u ah ayaa waxaa la daahfuri doonaa bisha soo socota ee November, iyadoo shirkaddaasi Facebook ay sheegtay inay ku wada hadli karaan dadka shabakadaasi isticmaala iyaga oo weliba muuqaal qurxoon qalabkaasi uu ku sameynayo gudbinta habka tooska ah ee macaamiishaasi isticmaalayaan. qalabkan casriga ah ayay shirkadda Facebook waxa ay sheegtay inuu qayb ka qaadan doono kobaca bulshada isticmaasha shabakadaasi Facebook. Saciid Axmed Tamreyse, wararka telefishinka caalamiga ah ee Star, Burco. ciidamada booliiska dalka Mexico ayaa baaritaan ku haya lamaane la xidhay iyaga oo wata xubno bini'aadamka, waxaana lala xiriiriyay inay dileen 10 ruux. markii ninka la xiray kadib waxaa la sheegay in uu qirtay inuu dilay 20 haweena kuwaasoo uu ku dilay goob ka tirsan magaalada lagu magacaabo Mexico City. baarayaasha ayaa xubno bini'aadamka ka mid ah ku arkay gurigii lamaanahaasi ay deganaayeen iyo weliba dhismo kale oo aan ka fogeyn gurigaasi oo ay ku keedinayeen xubnaha dadka ayay waxay ku hayeen frinji ama qaboojiye. baarayaasha ayaa sheegay in lamaanahan ay gadayeen xubnaha jirka dadka bini'aadamka ah, balse maysan caddayn cidda ay ka gadayeen. dumarka la dilo ayaa caado ka ah waddankaasi Mexico, inta badanna cid looma ciqaabo, balse faahfaahinta laga helay arrintan ayay cadho ka dhalatay waxaana ka dhashay in dadka mudaharaad ay ka dhigaan wadooyinka magaalada lagu magacaabo Ecatepec oo ah deegaan ay ku nool yihiin dad danyar ah kuwaasoo ka tirsan gobolka uu dhibkani ka dhacay. dadka mudaharaadaya ayaa sheegay in dumarka ay dilaan lamaanahaasi carruurtooda ay iibin jireen. dadka dariska ah ayaa sheegay in lamaanahan ay mar walba wadan jireen gaadhiga carruurta lagu riixo, taas oo markii dambe ay boolisku ka heleen xubnaha jirka.
ciidamada booliiska ayaa istaajiyay oo baadhay kadib markii bishii September la waayay haweeney lagu magacaabo Nancy Horton oo 28 jir ah